Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Aniga iyo walaalkay waxa aan joognay meel baraf aad u weyn oo ka da'ayo. Anigu waxa aan fadhiyay kursi, isla markaasna waxaan iska daawanayay dhalada. Walaalkay iga yarna wuu hurdayay, anigana filin ayaan ii socday oo daawanayay. Saacadda eegay waa 5tii habeenimo. TV-ga dimiyay, waan aamusay, shanqarta ayaa dhageysaday. Isla markaasna waa lama garaacay. Qiyaastooda waxay ahaayeen 5 ilaa 4. Anigu waan naxay, waana cabsaday, waan istaagay, waxaan aaday cabsi daraadeed xagga iyo daaqadda. Waxaan u jeeday, isla markaasna dib ayaa u soo dhacday. Waan naxay, nin soo eegay haddaan arkay. Waan cararay, xaggii taleefanka ayaa qabtay. Taleefanka booliska ayaa wacay. Waxay igu dhaheen booliska, maadaama maanta uu baraf da'ayo, ma ku soo gaari karno ciyow waxaad samaysaa walaalka waa inaad qarisaa. Isla markiina ayaan dhahay, waan ka dimiyay taleefankii. Isla markaana walaalkay uu cararayo ayaan waxaas yiri horta waa baxeene soo fiiri. Daaqadda ayaa istaagay, waan fiiriyay. Aniga oo saas u fiirinay ayaa isla markii waxaan maqlay shanqar. Shanqartu waxay noqotay daaqadda gadaal oo la soo jibinayo. Waan naxay, waan argagacay. Waxaas dhaha walaalka ma ka carartaa? Haddana walaalka aad ayuu u yaryahay, ma ka carari kartid? Maxaa samaysaa? Waan anoo yaaban ayaa waxaan soo aaday xagga kor iyo walaalkay. Waxaan dhageystay, waan maqlayay dad isoo daba cararayo. Isla markiina walaalkay ayaa waxaan dhahay aamus isoo raac. Waxaan galnay armaajada. Dhulka oo armaajada ku jirno oo waxa aan sameynaa garan la oo indhaha aan taagayno. Ayaabana wuxuu damcay inuu qeelisho. Afka ayaan ka qabtay. Yaabana waxaan sameynaa ma garanayno. Isla markiina dhulka oo meeshayna ku jirno ayaa waxaa maqlay cod meel dheer ah oo ka soo yeerayo xagga ciidanka iyo booliska baabuurtooda. Isla markiina albaabka ayaa soo furnay farxad daraadeed. Waana soo baxnay, waana nabadbaadiyeen booliska ana noo imaadeen. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.